Soomaalidu waa qabaayil xoolo dhaqatay ahayd intii isku qabiilihiiba daaqa iyo biyaha iyo xooluhu waxaa jira communalism waxaa ka dhaxeeyay intii isku qolaaba wax wadaag baa ka dhaxeeyo dhul bay wadaagayeen daaq bay wadaagayeen ceelkay wada qodanayeen haddii wax la soo weeraro geelayga aniga marka la qaado kuwa aanu toonka lahay geeloodii baa la qaaday geeloodii ila waa naga wada dhaxeeya geelii reer hebel yaa maali jiray wii caqliyadii caynka ahayd oo ku saxa markay biyadeeda joogto halkeeda markay joogto iyo deegaankeeda markay joogto faa'iido ku leedahay waa yani dawlad ma jiro dawlad ma jirto waxa la yaabay iyada badee dawlad ahayd markaas waxa jira wax guud oo qabiilka ka wada dhaxeeyaba ayaa jira oo geelu ka mid yahay oo dhulku ka mid yahay oo dhigta magaca sharafka inka reer hebel wuxuu koolaya waa gabayaageygii buu koolaya mitir oo marka cali dhuux laga hadlayo beel baa tirsanaysa gabayaageygii astura markaas loo yeelin ka astura oo waxa looga hubiya ilaa afkeeniyo marka wuxuu tirsan isagii qof loo baarkay gabiyo waxa uu arkayaan beesho inuu afkii beesho yahay waayo marka reer hebel u soo gabiyaan ayuu ka waabinayaa waa gabayaagoodii haddii ku rooyahay يعني واحد سامرها باش وقوة تحية أو يعني أي كوكلا ما كان كوف على تمية دول إلى قصة سبعة نماين يوروبا يبدو دول الويلسي واحد دول بدن قاطع دول الويلسي تيجي له كتبقنا هكذا صرت كقول بيسا دول الويلسي بقى تيجي بيعد لكن كائس جاء أيام باليدوا كورس جاي هذا سيد جاي بكرتها وحقيقة وسيلة تعليم تاني وسيلة تعليم توي كمان خلاص كهاليسو شبوت ولا بويه كتشرد شوجا ياك على سبيح شوجا ياك ميدل بوا وسيل هذه قلت السطو ده واحد قال يسامح شيء واي تمر حمو كمان قرار معها بس القرار ده مركب معها يعني علنكي iyo madaxweynimadi baa cali sheegatay ninun badee Soomaali cudub buu ka noqon lahaa cudub noqday cudub baa waxa uu qaadatay kursiga geeloodii mushkiladu halka aqliyada la iskaab kale geelayay marka geelooda ay ilaashanayaan dhagtii hareetaa la iska taagayaa cudubka ila geeloodii adiga wadankii kula dhashay ana wadankii kula dhashay oo hadda kursiga la leh ilaa madaxweynimo imika ana la leh ayuu wuxuu qaatay haddaan kaba hadlo nin shisheeyo soo fargeliyay geeloodii adu shaqa waxa uu ka yimi wuxuu ku hadlayaa inaga joojiya war wadankan ku dhashay war wata hargeysa ku dhashay oo berigii ilaa awowgii hargeysa ku dhashay oo halkan aad igu tibo igu qabsatay geelan waxa aad geel adigu haysta waan kula leeyahay suugaad horta tan u beenayd war geelan way laga dhaxeeyaa iyo may anaga reebelaho markaasaa suugaantii iyo cidii kale hataa ka soo horjeedsata suugaanto kaliya maaha waxa ku jirta hataa intellectual dadka mutacalimiinta ahaa ee dareemay war waxa ma lihidin ee umada wada leh ayaa madax laga fadhiistay marka waxa ilaa halkan ugu dheeraan Afrikada waxa ilaa ugu dheeraan waliba kale baasha geeloodii buu haystaa oo taa la yiraahdo baasha ka kaalay miigi oo dawladnimada uusan gaaladu u haysato ilaa saa loo fahmo sidii gobonimadu say tahay ilaa loo fahmo aburintan iyo cadaadiskan iyo ninkan madaxayga jugsanaya markaa fikradeyda dhiibto hadda mid baa u xanaaqaya miskiin oo baqteeyo oo saydo kala ah oo deema oo baqteeyo oo ka aanu hadlaya ah ayaa olaya madaxweynaha ay gabto wuxuu ga jeedaa shaqo ku qoray waad baqteeysaa ya tabcaal adaan ku hadlaya yani وهالك ay ku jirta caburinteenu halkay ku suugaanta la caburinayo waxa ay noo sii dheeraan sheegayaan leeyahay war waxa ma xayd ka haystaa teeso balkan miskiinka baqteeya fadkay way haysatay dawladii ba kale ay ka daran marka bahashar way iska cabursanaysaa ilaa aynu mafhuumkan bedelo la garto waxa ay tahay way cabursanaysaa suugaanta sababta keenaysa aad ku tiraahdo